Waa god yar oo ku yaala dhulka hoostiisa. Waa meel cidla ah oo qofna uusan joogin. Gudaha meel beer ah oo ku taalla baadiyaha dalka Ciraaq. Waxaa halkan ku dhuumanaya nin halyeey ah oo dunidu ay hollin weysay. Muddo dheerna dunida oo dhan ay hadal haysay. Madaxiisana la duldhigay 25 milyan oo dollar. Waxaa raadintiisa ku daalay kumanaan askari. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee casriga ah, sirdoonnada ugu awoodda badan dunida, iyo ciidamada gaarka ah ee Maraykanka. Inkastoo loo isticmaalay dayax-gacmeedyo, qalab casri ah iyo boqolaal howlgallo sirdoon ah, haddana lama heli karin ninkaasi. Meel kasta oo uu ka baxsanayay, dabinka loo dhigay iyo gacanta Maraykanka. Haddaba ninkaasi wuxuu ahaa Saddam Hussein, madaxweynihii Ciraaq, geesi mayal adag oo reer galbeedka ay aad uga baqi jireen. Ninkii xukumayay dalkan muddo ka badan 20 sano. Shakhsi dunida qaar ka mid ah ugu muuqday hogaamiye geesi ah, qaar kalena ay u arkayeen keligii taliye aan naxariis lahayn. Laakiin su'aasha ugu weyni waxa ay ahayd halka uu ku dhuumanayay. Shakhsiga ogaa meesha uu joogay Saddam Hussein iyo qofka keliya ee hayay sirta ugu qaalisan dunida wakhtigaasi. Shakhsigii ugu dambeyn lacag iyo badbaado ku beddeshay saaxiibkiisii ugu dhowaa ee Saddam Hussein. Haddaba sidee ayuu ku bilowday ugaarsigii ugu weynaa ee qarniga? Sidee ninkii xukumayay malaayiinta qof ugu dambeyn noloshiisu ay ugu soo dhammaatay god yar oo ku yaala dhulka hoostiisa? Si taas aan u fahanno, waa inaan dib ugu laabannaa maalinkii Maraykanku uu go'aansaday inuu afgembiyo Saddam Hussein, isla markaana uu bilaabay howlgalkii beddelay taariikhda Ciraaq. Ka hor inta aanan gudagelin saaxiibayaal, aan idin xasuusiyo inay muhiim inoo tahay inaad nagu soo biirtaan, ka qayb qaadataanna safarkeenna 200,000. hal subscribe iyo hal like oo aad nagu taageerto ayaa sare inoo qaadi kara. Ku mahadsanid. Sanadii 2001 dunida ayaa gashay marxalad cusub kadib weerarkii 11 Sebtembar ee lagu qaaday Maraykanka. Muuqaaladii munaaradihii ganacsiga ee New York ayaa burburay. Tani ayaa gilgishay dunida oo dhan. Dadka Maraykanka ah waxaa ku dhacay cabsi iyo care aan horey loo arag. Madaxweynihii xilligaasi ee Maraykanka, George Bush, waxa uu bilaabay dagaal uu ugu magac daray dagaalka argagixisada. Ujeedkiisa ayaa ahaa in la ugaarsado cid kasta oo loo arko inay khatar ku tahay Maraykanka. Muddo yar kadib, indhaha maamulka Bush waxa ay ku jeesteen dalka Ciraaq. Dowladda Maraykanka ayaa ku andacootay Saddam Hussein inuu haysto hubka wax gumaada, isla markaana uu xiriir la leeyahay Al-Qaacida. Laakiin xataa waqtigaasi waxaa jiray dad badan oo su'aalo ka keenay eedeymahaas. Sanado badan kadib, baaritaano badan oo la sameeyay ayaa muujiyay in Ciraaq aysan lahayn hubkii la sheegayay, sidoo kalena aan la helin caddayn muujinaysa xiriir toos ah oo Saddam Hussein iyo Al-Qaacida ka dhexeeya. Bishii Maarso 2003, ciidamadii Maraykanka iyo xulafadoodii ayaa gudaha u soo galay dalka Ciraaq. Dhanka kale, Saddam Hussein waxa uu ka soo muuqanayay telefishinada dalkaasi isagoo jeedinaya khudbado kulul. Waxa uu ku boorinayay ciidamada Ciraaq iyo shacabkaasi inay iska caabiyaan cidda soo duushay. Laakiin xaqiiqada ayaa sidaas ka duwanayd. Ciidamadii Ciraaq waxay ka soo daaleen dagaallo badan iyo cunaqabatayno dhaqaale oo sanado badan socday. Qalabkii militariga badankiisu uu doogoobay xilligaasi. Askarta intooda badan ma aysan lahayn rabitaan ay kula dagaalami karaan dalka Maraykanka. Muddo 2 toddobaad ah gudahood, taangiyadii Maraykanka ayaa soo gaaray gudaha caasimadda Baghdad. Dagaalkii ugu adkaa ayaa ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Baghdad. Halkaasi waxaa iska caabin xooggan ka sameeyay ciidamadii ilaalada gaarka ah ee Saddam Hussein. Dagaalkaasi waxa uu noqday mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa, dhiigga ugu badanna uu ku daatay intii uu socday dagaalkii gudaha Ciraaq. Markii iska caabintii ay jabtay, ciidamadii Maraykanka waxay si toos ah ugu dhaqaaqeen qasriyadii madaxtooyada. Ujeedka ayaa ahaa in gacanta lagu soo dhigay Saddam Hussein. Waxa ay galeen qasri kasta, waxa ay baareen qolalka khaaska ah, waxa ay fureen albaab kasta oo lagu tuhunsan yahay. Gudaha ayay u galeen godad qarsoon iyo qolal sir ah oo ku yaala qasriyada. Laakiin Saddam Hussein halkaasi ma uusan joogin. Waxa uu ahaa sidii qof hawada ku milmay oo kale. Markii ugu horreysay, Maraykanka waxa uu la kulmay xaqiiqo adag oo uusan filaynin. Waxa ay qabsadeen dalkii ay rabeen, iyagoo ujeedka ugu weyn oo ahaa inay gacanta ku soo dhigaan Saddam Hussein. Laakiin gacan kuma hayaan, talana faraha ayay ka baxday. Maalmo kadib, sawirkii Saddam Hussein ayaa noqday qofka ugu weyn ee loogu raadinta badan yahay dunida. Maraykanku waxa uu ku dhawaaqay abaalmarin lacageed oo aad u waaweyn. Qof kasta oo bixiya xog horseedi karta qabashada labadii wiil ee Saddam Hussein uu dhalay ee ahaa Uday iyo Qusay Hussein, iyo sidoo kale Saddam Hussein iyo saraakiishii ugu dhowaa, waxa uu helayaa lacag xad dhaaf ah oo aan innaba la qiyaasi karin. waxaa loo ballan qaaday malaayiin dollar qofkii soo sheega
wararkaasi waxa ay ku faafeen dhammaan gudaha Ciraaq. Dad badan ayaa markii ugu horreysay ogaaday in xog yar oo ay bixiyaan ay ka dhigi karto milyaneer. Dhanka kale, Saddam waxa uu galay nolol cusub. Ninkii qasriyada dahabka ah deganaa ayaa noqday nin beeraha ku dhuumaalaysta. Maalin walba meel cusub ayuu seexan jiray, marna guri yar ayuu jiifan jiray, xilliyada qaar beer ayuu jiifan jiray, marna waxa uu hoos geli jiray godad yaryar oo dhulka hoostiisa ka qodan. Waxa uu ogaa in dayax-gacmeedyo, diyaarado iyo sirdoon adag oo awood badan ay raadinayaan. Wuxuu kalsooni ku qabay dhowr qof oo keliya. Mid ka mid ah dadkaasi waxa uu ahaa nin lagu magacaabo Maxamed Ibraahim al-Muslit. Ninkani ma ahayn qof caadi ah, waxa uu ahaa ilaaliye gaar ah, saaxiib aad ugu dhow Saddam Xuseen, qof ay dad badan aaminsanaayeen inuu ka ogyahay Saddam Xuseen wax ka badan dadka kale oo dhan. Waxaa intaas u dheer inuu maamulayay lacagihii iyo xiriiradii dadka daacadda u ahaa Saddam Xuseen. Sirdoonka Mareykanka wuxuu si degdeg ah u fahmay arrintaas. Waxay ogaadeen in haddii ay rabaan inay soo qabtaan Saddam Xuseen, ay ka horreyso in la soo qabto lana helo xogta dadkii ugu dhowaa Saddam Xuseen. Waxay sameeyeen khariirad sirdoon oo faahfaahsan. Waxay ogaadeen in Saddam uu lahaa dhowr qof oo ahaa saaxiibadii ugu dhowaa, ahaana dadka keliya ee uu ku kalsoon yahay, lagana heli karo xogta saxda ah. Heerka ugu sarreeya waxa uu ahaa rag iyo had jeer la socday. Raggaasina waxaa ugu muhiimsanaa Maxamed Ibraahim. Muddo bila ah ay ciidamada Mareykanka raadinayeen Maxamed, laakiin nin kasta oo ay qabtaan waxa uu sheegayay wax yar oo keliya: Saddam waa la waayay. Intii raadintu socotay, dhacdo weyn ayaa dhacday. Nin lagu magacaabo Nawaaf al-Zaydaan ayaa la soo xiriiray ciidamadii Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu hayo xog ku saabsan wiilashii u dhalay Saddam Xuseen ee Uday iyo Qusay. Markii hore sirdoonku ma aysan rumaysan arrinkaas, wayna dhayalsadeen. Laakiin markii xogtan la xaqiijiyay, howlgal weyn ayaa la abaabulay. Boqolaal askari ayaa lagu hareereeyay gurigii lagu sheegay wiilasha. Wax yar kadib, dagaal culus ayaa qarxay. Rasaas xooggan ayaa socotay saacado badan. Uday iyo Qusay way diideen inay isdhiibaan. Ugu dambeyn, gurigii ayaa lagu burburiyay. Halkaas ayayna ku shahiideen. Dhacdadaasi waxay beddeshay wax walba, sababtoo ah markii dadku ay arkeen in ninkii bixiyay xogtaasi dowladda Mareykanka ay siisay lacago xad dhaaf ah, dad badan ayaa bilaabay inay xogo gudbiyaan. Taleefanno badan ayaa soo dhacay, warar badan ayaa la keenay. Qaar ayaa ahaa kuwo been ah, qaarna waxay ahaayeen kuwo run ah. Laakiin hal xog ayaa ka duwanayd dhammaan xogaha la soo gudbinayay oo dhan. Xogtan ayaa ahayd mid ku saabsan Maxamed Ibraahim al-Muslit. Ciidamada Mareykanka ayaa bilaabay ugaarsigiisa. Qoyskiisa ayaa la qabtay, qaraabadiisa ayaa la wareystay, saaxiibadiisii ayaa la dabagalay. Ugu dambeynna waa la soo helay. Markii la qabtay, Mareykanka ayaa ogaaday inay gacan ku dhigeen furihii ugu muhiimsanaa ee Saddam Xuseen. Baaritaano badan kadib ayaa loo soo bandhigay heshiisyo, lacago aad u badan, badbaado isaga iyo qoyskiisa, iyo in nolol cusub oo ammaan ah la gelin doono. Warbixino badan ayaa sheegay in loo ballan qaaday isaga iyo qoyskiisa in laga ilaalin doono aargoosiga, lagana saari doono goobaha khatarta ah. Ugu dambeyn, Maxamed Ibraahim ayaa hadlay. Waxa uu bixiyay xogtii ugu muhiimsanayd ee dagaalka oo dhan. Waxa uu sheegay meesha Saddam Xuseen uu ku dhuumanayo. 13 Diseembar 2003, ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ayaa bilaabay howlgal loo bixiyay Red Dawn, waa bariga cas. Boqolaal askari ayaa lagu hareereeyay beer ku taala deegaanka Al-Dowr ee gobolka Salaaxudiin. Waxay bilaabeen baaritaano taxaddar leh. Waxay baareen guryaha, waxay qodeen meelo badan, waxay dhex mareen beeraha oo dhan. Saacado badan ayay halkaas ku qaateen, weli waxba lama helin. Qaar ka mid ah askarta ayaa bilaabay inay rumaystaan in xogtii la siiyey ay ahayd mid qaldan. Waxay ku sigteen inay halkaasi iskaga soo baxaan, laakiin daqiiqadihii u dambeeyay, Maxamed Ibraahim ayaa tilmaamay meel gaar ah. Waxay ahayd meel yar oo aan marka hore u muuqan meel muhiim ah. Markii askari ka mid ah ciidamadii gaarka ahaa ee Mareykanka uu u dhowaaday goobtaasi, waxay ahayd goob dusha sare ay ka sarnayd carro, caws iyo waxyaabo kale oo indhaha qofka qarinaya. Markii daboolka laga qaaday, waxaa soo baxay god hoose oo hoos u sii degaya. Askartii ayaa isla markiiba isku hareereeyay. Qof walba waxa uu fahmay in ay tahay wixii maalmahan oo dhan la raadinayay. Mid ka mid ah askarta ayaa hoos u eegay. Markaas ayaa godka waxaa ka soo baxay jabaqda ama codka qof. Qofkaas ayaa oranayay, anigu waxaan ahay Saddam Xuseen. Waqtigaas ayuu dhammaaday ugaarsigii saxda ahaa. Sawiradiisa ayaa saacado gudahood dunida ku faafay. Qaar ayaa u arkayay guul taariikhi ah, dad kalena waxay u arkayeen maalin murugo leh. Laakiin
qof walba wuxuu ogaa in taariikh cusub ay bilaabatay. Kadib waxaa loo qaaday magaalada Baqdaad. Waxaa lagu hayay xabsi adag muddo dheer. Waxaa la horgeeyay maxkamad. Muddo sanado badan ah dacwad ayaa socotay. Warbaahinta dunida oo dhan ayaana si dhow ula socotay dacwadiisa. Mar kasta oo Saadaam maxkamadda yimaado, wuxuu isku dayi jiray inuu muujiyo adkaysi iyo hal adayg. Wuxuu ku adkaysan jiray inuu yahay madaxweynihii Ciraaq. Waxa uu diidi jiray eedeymaha loo haystay. Laakiin maxkamadda ugu dambeyn waxa ay gaartay go'aankeedii. 5 Nofeembar 2006 ayaa lagu xukumay dil daldalaad ah. Subaxnimadii 30 Diseembar 2006 oo ku beegnayd maalin Ciidul Adxa ah, waxaa la gaaray saacadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa. Geesigii Muslimiinta Saddam Hussein waxaa laga soo saaray xabsiga. Waxaa loo qaaday goobtii dilka. Waxaa goobtaasi joogay mas'uuliyiin iyo saraakiil badan. Warbixintu waxa ay sheegaysay in daqiiqadihii u dambeeyay oo muran iyo hadallo kulul dhex maray isaga iyo siyaasiga Ciraaqiga ah ee Muwaffaq al-Rubayci. Saddam waxa uu ku jawaabay erayo adag. Waxa uuna sii watay hadalkiisii ilaa ilbiriqsigii u dambeeyay. Kadibna xukunkii ayaa lagu fuliyay. Sidaas ayay ku soo dhammaatay noloshii ninkii xukumayay Ciraaq muddo ka badan 20 sano. Nin dunida intooda badan ay u aragto geesi. Waxaa halkaasi ku soo dhammaaday sheekadii ku saabsanayd qaabkii loo qabtay iyo qaabkii loo shirqoolay Saddam Hussein. Saaxiib, haddii aad ila soo gaartay ilaa ay dhammaadka muuqaalkan, muhiim ayay ii tahay inaad igu soo biirto oo aad ka mid noqoto saaxiibada igu xiran. Ka qayb qaado safarkeena 200,000 ee qof ee nagu xiran. Haddaad igala socoto boggayga Facebook ee Xasan Kaafi Xalanana, ku xirnow saaxiib. Muuqaalka haddii aad ka daawanayso YouTube-keenana nagu soo bir ayaan ku leeyahay mar kale. Waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga.